gabar baa aabaheed u dacwootay gabdhuura raalli ahaada waxay tiri ciyaalka xaafadda markaan ag marayo keeg bay ugu magacaabaan keegna wax un waay odaygii waa soo dhaqaaqay wuxuu u yimid ciyaalkii isagoo budkiisa wata gabadhayda ninkii dib dambe keeg u yidhaahda wuxuu yidhi tii ku dhacda waa la ogaanaya maalinkii dambaa gabadhii iyo odaygii israaceen ilmihii oo meeshii jidkii fadhiya malaha ciyaal xamar bay ahaayeen kuwaas mid baa wuxuu yidhi biyo mid kalea yidhi bur mid baa yidhi sokor mid baa yidhi kareemka mid baa yidhi ukun u dabamarsiiyey rag haddaatiin isku qasu yidhi idinku intaas waad tidhahdeen car isku qasaca haddaa aragteen aniga caaway halkan hadallaha la isku dhaafsaday midnimada soomaaliyana dadka u doodaan ah oo koonfurta soomaaliya ka soo jeeda qodob waxaa jira qodobka 54 ee dastuurka waa sheegaa inta badan waa iska daliilsada kaas si fiican baa u xifdiyey wuxuu sheegaa oo ku qeexan awoodaha dowladda federaalka soomaaliya ayadoo dhan ba odaygii faroolaa 4 keliyuba ka siiyey ilaan dastuurkan faroolaa soo qooshay 4 shay keliya ayuu ka siiyey waa arrimaha dibadda dowlad goboleed wasiir dibadeed ma samaysan karto ama waddanka soomaaliya gudihiisa safiir ma magacaaban karto wakiil xitaa dibadda ma magacaaban karto ilaa service inay u qadimaan dadkaas maamulkan oo dhan ba waxaa loo dadejiyey inay dadka serviceka adeegii dowladnimada inay gaarsiiyaan laakiin inay isku dhiririyaan dowladdii dhexe looma samayn qodobka xiga waa arrimaha difaaca ciidamo difaac wasiir difaac cidna ma samaysan karto farola puntland ciidanka difaacaad arkaysa iyo somalilandba qodobka saddexaad oo ku xiga waa lacagta lacagtuna waa awoodda dowladda dhexe oo annagoo wasiirra aan ku dhaarannay oo xildhibaanna ku dhaarteen in la ilaalinayo sharciga iyo dastuurka dalka kan u dambeeya waa immigrationko ninkaas saaxiibkeena oo Mustaf Dhuxuloowa uu mas-uul ka yahay oo ah fiisa dalku gal sii socod soo socod waa awoodda dowladda dhexe cidna kulama tartami karto cid lagu dhibayana ma jirtaba markii horaaba awooddan meeshaa la iska dhiga inteenaan hadda halkan joogtay in kalena kitaabo badan baan ku soo mar aniga waxaan qabaa marka sidii Mustaf uu yidhi dal laguma dhibayo ee dalka lagu hagaajinaya arrinta fiisaha waa arrin dalka lagu dhib maba ahanba sababtoo tahay Itoobiya qofku markuu galayo oo baasaboor ajnabi wato qof Itoobiyaan yahay ama Kenya qof Kenyaati hadduu yahay dalkiisa markuu galayo baasaboor ajnabi wato waxa uu dhiganayaa baasaboorkiisa sidii qof ajnabi ah loola macaamilaya dhib maahan dhibna in loo arko maba ahanba in laga qayliyo qaylo badan na ma ahan nimanka saaxiibadeena maalmaha dhow waa lay wadwada aniga waxaa weeye hadda xaq baaban u leeyahay inaan iska hadlay inta badan sababtoo tahay meel meeshaas waa laygu haystaaba xildhibaanana anigu maba la hadlayo laakiin meel meeshaas ayaa laygu rifaa maalin walba hadda xal oo dhan iyo shal oo dhan sawiradeeday wadeen ninkii fiqiya xuub caaro isagii waa meeshii faarisaas yiri